waxaan u mahad celinayaa guddigii qaadaysay imtixaankii qoraalka ahaa oo iskugu jiray hay'ado kala duwan oo qaran oo garsoorka iyo jaamacadaha dalka intuba iskugu jiraan oo iyaguna runtii si nafhurnimo ah oo daacadnimo ah oo alla ka cabsi leh oo kalsooni leh oo wadaninimo leh uga shaqeeyay arrinta waxaan u mahad celinayaa guddiyadii ka sii dambeeyay ee qaadayay imtixaankii qoraalka ahaa kuwii isku hagaajinayay magacyadii iyo nambaradii maadaama imtixaanku markii la saxayay aan magacyo lagu saxayn si loo hubiyo dadkaasi inay qof walba uu helo cadaalad isla markaana uu kalsooni buuxda ku qabi karo hanaanka imtixaanka waxaan u mahad celinayaa qof kasta oo dadaalkaasi ka qayb qaatay oo runtii qayb ka ahaa hawshan markii aanu bilaabaynay waxaanu lahayn yoolal waaweyn iyo hiigsiyo qiimo badan oo aanu aaminsannahay dalkan inay wax weyn xaaladdiisa ka bedeli doonaan waxaanu aaminsanayn xaqiijinta helitaanka garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaad ah karti leh sumcad leh ku shaqeeya mabaadi'da shareecada islaamka dastuurka iyo qawaaniinta dalka isla markaana dhowra xuquuqda aadamaha iyo xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed si taasi loo xaqiijiyo waxaanu yaqiinsanay oo maskaxdeeda ku jirtay habka keliyata ee lagu heli karo ee yoolka iyo hadafka weyn lagu xaqiijin karo inay tahay in marka hore garsoorka habka lagu soo gelayo iyo sida garsoorayaasha lagu qaadanayo iyo qaabka kaaliyayaasha iyo gaadhsiiyayaasha lagu qaadanayo ay noqoto mid cadaalad ah oo daah furan oo xaliiban oo dhexdhexaad ah oon eex qaraabakiil iyo qabyaalad midna ku iman waxaan aaminsanayn dadka ku yimaada habkaas oo keliyata ayaa xaqiijin karaa gaaritaanka himiladaasi weyn ee aanu lahayn waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay qayb ka mid ah hadafkaasi inaynu gaadhnay oo aynu ku guulaysanay oo boqolkiiba 50 ka badan 40kii garsoore aynu ugu talagalnay inay garsoorka qayb ka noqdaan halkan maanta ay fadhiyaan oo halkan lagu dhaariyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana maalin weyn oo garsoorka uu leeyahay waa maalin weyn oo cadaaladdu leedahay waa maalin weyn oo aan isleeyahay waxay dhaxal u noqon doontaa ummadda Soomaaliyeed runtii nidaamka ku timaadeen wuxuu soo maray dariiq aad iyo aad u dheer dariiq aad iyo aad u culays badan bareshar badan waqti badan loo soo jeeday culayska iyo dhaqamada dalka ka jirana saameyn weyn runtii ay ku lahaayeen laakiin waxaas oo dhan lagaga soo gudbay dhabar adag waxay ka soo bilaabantay marka koowaad in la isla garto oo la sugo in position kasta ama jago kasta oo garsoorku u baahdo in la xayeysiiyo oo ummadda Soomaaliyeed loo bandhigo oo la siiyo ummadda Soomaaliyeed fursad siman waxa ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga lahaa ay ahayd in garsoorku uu helo dadkii kartida aqoonta iyo waayo-aragnimada u lahaa dadkii alla ka cabsiga iyo daacadnimada lahaa laba waxa laga lahaa in ummadda Soomaaliyeed ay fursado siman u hesho fursadaha dalka ka jira ee shaqo